أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal ku soo dhowaada janalka kaahiya balaas haddii aad janalka ku cusub tahay sabskraib saar gambaleelkana furo muuqaalkana laagarey asxaabtada la wadaag mahadsanidin bismillahi raxmaani raxiim waxaan bartanka uga jirnaa maadadeenii xisaabta fasalka sideedaad hore waxaan soo qaadanaa cutubka koowaad oo ahay waxa loo yaqaan ururo halkan waxaan gelaynaa cutubka labaad oo ah jibaar cutubka labaad oo ah jibaar casharkiisa koowaad jibaar waxaa loo yaqaanaa marka xisaabtu nuucan ay u qoran tahay ayaa jibaar loo yaqaanaa tusaalada e oo ku jibaaran n waaya eedan waxaa loo yaqaanaa sal waa meesha uu ku taagan yahay intan waxaa loo yaqaanaa muujiye waxay sheegaysaa jibaarku intuu yahay saddexaa ku jibaaran afaraa ku jibaaran shanaa ku jibaaran meesha la dhihi lahay muujiye hadda n numbersay u taagantahay n sidoo kale intaanoo dhan marka laisku daro salka iyo muujiyaha marka laisku daro jibaar ayaa loo yaqaanaa waxa ciwaankeenu ku saabsan yahay waa muujiyaha iyo salka marka laisku daro maxaa loo yaqaanaa jibaar waayah waxaan casharkan ku baran doonaa fahamka jibaarada sidoo kale xalinta tusaalooyinka labadaas qodob ayaan tig saari doonaa jibaar muxuu yahay inaan isla fahanno kadibna aan xalino tusaalooyinka la xiriira waayah fahamka jibaarada waxaan ku hormaraynaa fahamka jibaarada casharkan waxaan ku baranaynaa sida tirooyinka loogu tibaaxo jibaar ahaan qaabkeed tiro jibaar ahaan loogu qoraa jibaarkana loogu tibaaxo tiro ahaan qaabkase tirooyinka loogu qoraa jibaar ahaan labadaasaan ku baranaynaa in tiro loo qori karo jibaar iyo in jibaarka loo qori karo tiro labadaas ayaan ku baranaynaa qaybtan ugu horeysa horta fahamka waayah waxaynu u qori karnaa tirooyinkan kala ah 4 8 9 iyo 16 tirooyinkaas si gaaban anaga oo adeegsanayna jibaaro habka jibaarada aan ku adeegsanayna ayaa waxaan qori karnaa si gaaban jibaarku sidiisaba tiro dheer ayuu soo koobiyaa soo gaabinaya tiro dheer oo markii la qori lahaa meel weyn ku fadhiisanayso ayuu soo koobayaa waayah tusaale 4 ugu horeymaano 4 waxay ka timid 2 lagu dhifta 2 ay ka timid 2 iyo 2 soo isku mid maahan hal ka qaado meeqa la isku dhiftay 1 2 laba jeer la isku dhifto maano 2 ku jibaarayna marka 4 waxaa loo qori karaa 2 ku jibaaran 2 loo qori karaa simply 4 maxaa loo qori karaa jibaar ahaan 2 ku jibaaran 2 labadan waa basic labadan karo jibaarkan waxay tusinay meeqa nambara la isku dhiftay 2 la isku dhiftay meeqa labada la isku dhiftay 2 labada la isku dhiftay waaye 8 maxaa loo qori karaa 8 intay ka timid waxay ka timid 2 lagu dhiftay 4 maxay ka timid 2 lagu dhiftay 4 afartaa lasii kala jibi karaa afarta maxay ka timid labadan soo qaado afartuna waxay ka timid 2 lagu dhiftay 2 marka waa 2 lama kala jibi karo laba waxaa loo yaqaanaa tirooyinka mutaxana la yidhahdo tirooyinka waxaa loo qaybaa tiro farcan iyo tiro mutaxan 2 iyo 3 iyo 5 iyo tirooyinka aan kala jijibmayn tirooyin mutaxana la yidhahdo ma kala jibahayn tirooyinka 6 oo kala ah oo 2 lagu dhiftay 3 loo qori karo 8 oo 4 lagu dhiftay 2 loo qori karo 9 lagu dhiftay 3 lagu dhiftay 3 loo qori karo tirooyinkaasna tirooyin farcama la yidhahdo farcay leeyihiin marka mar allaala marka jibaar loo qoraayo tiro mutaxan ayaa la geynaa meesha ugu dambeyso tiro mutaxan oon sii kala jebin hadda 2 amba 2 lama sii kala jebi karo marka 2 hal labaad iga qaata hay meeqa labaan isku dhahay 1 2 3 saddexan ku jibaaraya 8 waxaa loo qori karaa si fudud jibaaraan marka 2 ku jibaaran 3 waayah 9 ku xigta mayno 9 intay ka timid 3 lagu dhiftay 3 ay ka timid 3 sii kala jebi mayso 3na sii kala jebi mayso bis 3 laba iga qaad meeqa 3 is dhahay 1 2 ku jibaar 9 waxay la fac tahay 3 lagu jibaaray 2 ayaa loo qori karaa 9 waxaa loo qori karaa 3 lagu jibaaray 2 yaa ii hela 16 ma ii helino 16 intay ka timid waa 4 lagu dhiftay 4 ay ka timid 16 may ka timid 4 lagu dhiftay 4 afartan waa tiro farcan waa lasii kala jebi karaa afartan kalena tiro farcan waa lasii kala jebi karaa tiro mutaxana la geynaa afartan waxay noqonayaan 2 iyo 2 afarta kalena waxay noqonayaan 2 iyo 2 afar labadan is dhaha marka 2 hal 2 iga qaad meeqa labaan is dhaha 1 2 3 4 afartan ku jibaara marka
16 waxaa loo qori karaa 2 ku jibaaran 4 loo qori karaa. Halkaa waxaan ku baranay qaabka tirooyinka loogu qoro jibaar, ya qaabka tirooyinka loogu tibaaxo jibaar ahaan. Qodobkaas waa isla haynaa. Qormo qoraaleedka gaaban ee 2 ku jibaaran 4. Tusaale 16 waxaa soo baxda 2 ku jibaaran 4 maano. 2 ku jibaaran 4 ayaa u taagan 16. Tusaale ahaan 2 ku jibaaran 4 maxay u taagan tahay 26. Haddaan 26 ku dhaho iyo haddaan ku dhaho 2 ku jibaaran 4 isku mid waaye, isku mid waaye. Marka fiiri waa sii kala furfuraynaa. Tanaan waa ximnaynaa. Labada maxaa loo yaqaanaa? Labo waxaa lagu magacaabaa sal, waa salka. Jibaar markii la joogo salka jibaarka labaa naqanayso. 4 waxaa lagu magacaabaa muujiyaha, waa jibaarka. Meeshan waa 4. 2 ku jibaaran 4 baa leedahay ku sheegaya 4 tana ku tusinaysa. Haddii 3 taan 2 ku jibaaran 3. Haddii 5 taan 2 ku jibaaran 5. Salku ma isbedelaya meeshan waa isbedeli kartaa. Haye markii labadood la isu geeyo salka iyo muujiyaha oo wada jira waxaa lagu magacaabaa jibaar. Markii salka iyo muujiyaha wada jiraan maxaa lagu magacaabaa? Jibaar lagu magacaabaa. Kan kaligiis 2 kaliya waa sal, 4 kaliya 4 tan kor waa muujiye. Isku darkood maxaa loo yaqaanaa jibaar, waa jabtarkay magaciisa. Waa kana 2 ku jibaaran 4 meeshan waa muujiye 4tu, labadu waa sal intoon markii la isu geeyna waa jibaar ayaa loo yaqaanaa. Hagaag. Tusaalaha koowaad u tibaax tirooyinkan soo socda jibaar ahaan. Tirooyin lagu sii doonaa waxaa u qoraysaa jibaar ahaan. Oday hadda marina hadda in soo tusad oo hordhac aheyd lee maraynaa. Waayah ba waxaa la siiyay 4, ta waxaa la siiyay 25, ja waxaa la siiyay 27, xan waxaa la siiyay 81. Hagaag. Furfuris. Furfur dheh. Furfuris markaan waxaan leenahay ba aan soo qaadanaynaa ba. Waxa aan raadinaynaa isirrada mutaxan. Tirooyinka maxaan raadinaynaa marka? Isirrada mutaxan kadibna waxaanu qoraynaa jibaar ahaan. Isirrada mutaxan maxaa waa? Tirooyinka aan la sii kala jebi karin oo tirooyinkan ay ka kooban yihiin raadinaynaa. Tusaale waxa aynu haysanaa 4. 4 maxay ka timid marka 2 lagu dhifto 2. Waa kana isirradeeda mutaxan. Isirrada mutaxan lagu sheega waa 2 iyo 2. 2 ma sii kala jebay? Maya. 2 tirooyinka la yiraaho isirrada mutaxan ay ka tirsantaa ama tirooyinka mutaxan. Tirooyinka mutaxan haddaan kugu celiso waa 2 ma kala jebayso, waa 3, waa 5, waa 7, waa 11, waa 13. Nambaradaas waxay ka imaadeen nafsadooda oo lagu dhifto hal, wax kale ka yimaadeen ma jirto. Marka nambarku uu ka yimid naftiisa oo lagu dhifto hal oo 2 nambaro kala duwan uusan ka imaanin tiro mutaxan u noqonaa. 4 waxaa loo qoraa marka 2 lagu dhifto 2. Haye 2 iyo 2 halka soo qaad. Meeqa labaad waa 1, 2, 2 ku jibaaraynaa. Hagaag. Waxa aynu haysanaa 25. 25 maxay ka timid 5 lagu dhifto 5. Hal haba iga soo qaad. Meeqa shanaad waa 1, 2, 2 ku jibaar. 25 jibaar ahaan idan waxaa loo qori karaa 5, 5 isku wargaraysan. 4 jibaar ahaan 2 isku wargaraysan. Halkaana geey. Ja waxa aynu haysanaa 27. 27 waxay ka timid 3 lagu dhiftay 9. Halkaan markii la joogo 3 waa tiro mutaxan. Laakiin 9kan tiro farcan waa la sii kala jebi karaa. Shay kastoo tiro farcan in sii kala jebiso qasab waaye. Hay 3 ay soo qaad. 9 muxuu ka yimid? 3 lagu dhifto 3 uu ka yimaad leen. Hadda waxaan haysanaa 3 wax la sii kala jebi karo ma jiraan. Hal 3 ka qaado. Meeqa waa muga 1, 2, 3. 3 ku jibaar. 3 ku jibaaran 3 waa 27. Hagaag. Number xa waxaan haysanaa 81. 81 maxay ka timid? 81 waxay ka timid 9 lagu dhifto 9. 9kan waa tiro farcan. 9kan kale waa tiro farcan. Labadooda waa sii kala jebayaan. Mid walba kala jebi. 9kan waa 3 iyo 3. 9kan waa 3 iyo 3. 4 3 ma iska imaanayso. 9kan 3 lagu dhifto 3 naqay lagu sii dhiftadan waa mid daaniya. 9kan kale ay naqay 3 lagu dhifto 3. Meeqa 3 haysanaa mugu? Hal 3 iga qaad. Hal 3 iga qaad. meeqa haysanaa 1, 2, 3, 4. 4 kor waa jibaar. 3 lagu jibaar 4 ayaa 81 la mid ah. Ayaa 81 la mid ah. Habkaas waxaan ku baranay sida number loogu qoro jibaar ahaan. Sida number loogu qoro jibaar ahaan. Waaya tusaalaha labaad. Waxaa lagu yiri midkeebaa weyn labadan. 2 ku jibaaran 3 iyo 3 ku jibaaran 2.
mar laba sal laga dhigay saddexna muujiye marna saddexaa sal laga dhigay labana muujiye yaa weyn haddii lagu yidhaha laba ku jibaaran saddex kulli waa isla laba iyo saddex iyo laba iyo saddex ka kooban yihin laakiin waa la kala dabagediye markii la yidhaha laba ku jibaaran saddex iyo markii lagu yidhaha saddex ku jibaaran labo kee weyn hore go-aan hoga gaad hore go-aan kana weyn midna ha dhihin waa xalinaya bis solution warqad iyo qalin qaado furfurisaad leedaha waxaynu haysanaa leedahay laba ku jibaaran saddex fiiri marka laba ku jibaaran saddex saddexdan wuxuu u tusinaa labadan oo saddex mar laysku dhifto maxaa jiro marka soo marayna saddexdan maxay sheegaysa saddex labaad inay meesha yiileen oo hal laga qaato marka waxaan leenahay laba ku jibaaran saddex waxaa loo qori karaa waa labo lagu dhifta labo lagu dhifta labo saddexdan waxay tusinaya saddex labaad bis laba loo ku dhifo afar afar loo ku dhifo sideed laba ku jibaaran saddex maxaa soo baxaysa marka sideed hadda jibaaran lan siiye tiraan u bedelna haye hadda tan waa haynaa marka laba ku jibaaran saddex waa sideed waxaan soo ogaanaynaa saddex ku jibaaran labo iyadana sidoo kale waxaan haysanaa saddex ku jibaaran labo labadan waxay tusinaysa saddexdan oo laysku dhifto waxaan leenahay marka saddex lagu dhifto saddex laba saddexaad bis ay tusinaysa sababtoo ah muujihi waa labo salku inuu laba laysku dhifto ka yimid ay tusinaya saddex saddex ku dhifo sagaal tan maxaa soo baxay sideed tanna maxaa soo baxay sagaal maadaama fiiri marka sagaal waa ka weyn tahay sideed calaamadan ka weyna leeyahay sagaal ay ka weyn tahay sideed sagaal waxay ka weyn tahay saddex ku jibaaran labo waa sagaal laba ku jibaaran saddexna waa sideed sagaal maadaama ay ka weyn tahay sideed waa naqaanaa soo ma sidaas daraaddeed saddex ku jibaaran labo oo sagaal keentay ayaa ka weyn laba ku jibaaran saddex oo sideed keentay labada number kana weyn marka saddex ku jibaaran labo ayaa weyn laba ku jibaaran saddex aa yar kan waa sideed kanna waa sagaal u keenaya halkaas haddaa ka jawaabi kartaa marka haye tusaale saddexaad fiirihe midkeebaa weynaa lagu yiri labadan shan ku jibaaran labo iyo laba ku jibaaran shan yaa shan ku jibaaran labo iyo laba ku jibaaran shan yaa weyn hebelaa weyn horaha ka dhihin hadda tusaale haddaa inta fiirisid labadan saddexda oo salka ah iyo labada saltaas saddexda salkaa weynaata soo ma markii saddexda salka aheed ay weynaata hadda kan daa fiirisid niyad ha iska dhihin shan aa sal u ah kanna labaa sal u ah shantaa weynaa doonta isu dhihin furfur adaa jawaabta arkaysid furfuris dheh waxaan leenahay waxa aynu haysanaa shan ku jibaaran labo waxaa loo qori karaa labadan waxay tusinaya shantoo laysku dhiftay shan ku dhifo waa 25 hagaag laba ku jibaaran shanna waxay tusinaya shantan labadan oo shan mar laysku dhiftay shantaas waxay tusinaya salkan oo shan mar laysku dhifto waa labo lagu dhifta labo lagu dhifta labo lagu dhifta labo lagu dhifta labo waa shan labaad calculator qabo tartiib isugu dhifso marka laba loo ku dhifo waa afar afar loo ku dhifo waa sideed sideed loo ku dhifo 26 26 loo ku dhifo 32 fiiri marka shan ku jibaaran labo waxay keentay 25 laba ku jibaaran shanna waxay keentay 32 ma la qiyaasi karin marka maya inaad ka shaqaysa u baahan tahay hadday 25 iyo 32 yaa weyn marka 32 maa weyn sidaa darteed laba ku jibaaran shan ayaa weyn labadan laba ku jibaaran shan waxay ka weyn tahay shan ku jibaaran labo waa kana sidaa daraaddeed saddex dhibaad waxay u taagan tahay sidaa daraaddeed laba ku jibaaran shan ayaa waxay ka weyn tahay shan ku jibaaran labo waa kaasaa tusaale afraad waxaa la yidhi u muuji jibaar ahaan tirooyinkan soo socda jibaar ahaan u muuji waxaa la isiiye a oo lagu dhifta ba lagu sii dhifta a lagu sii dhifta ba lagu sii dhifta a halkaas markii la joogo waxaan sameynaa sidoo kale waxaa la isiiye a oo lagu dhifta ba lagu dhifta ba lagu dhifta ba lagu dhifta a lagu dhifta a sidoo kale waxaa la isiiyey minus a minus a oo lagu dhiftay minus a oo lagu sii dhiftay minus a oo lagu sii dhiftay minus a ayaa la isiiyey saddex habaa la isiiyey furfuris dhe marka ka ugu horreeya soo qaado a oo lagu dhifta ba lagu dhifta a lagu dhifta ba lagu dhifta a waa midkan kore halkan markii la joogo waxaan sameynaa wixii a dhinacaan asla soo maray wixii ba dhinacaasa maraya haddaan dhinacan soo marto waxay naqeen meeqa a ku jirta kow labo saddex maano a oo lagu dhifta a oo lagu dhifta ay naqaneen ba'na maxaa ku jirta kow labo ba lagu dhifta ba xaggaas la marinaa saddexdan a ood fiiri marka hal hab baan ka qaadana hal hab baan ka qaadana hal a aan ka qaadana hay meeqa a waay kow labo saddex saddexna ku jibaara
markaas saddexdaas hal habbaan ka qaadha waxaan ku jibaaraa saddexaan ku jibaaraa ba iyo ba'na hal ba'aan ka qaadanaya meeqaan ku jibaara laba ba'ood mahan un labaan ku jibaara marka lagu dhifta ba lagu dhifta lagu dhifta ba lagu dhifta jawaabta soo baxaysa waa ku jibaaran saddex iyo ba ku jibaaran labo nambar labo waa ku dhacsan ba ku dhacsan ba ku dhacsan ba ku dhacsan ku dhacsan wixii isla xag marya daran adan xag marya saddex ay noqotay iyo saddex ba sidaa darteed waa ku jibaaran saddex iyo ba ku jibaaran saddex ay noqonay ku jibaaran saddex iyo ba ku jibaaran saddex nambarka ugu dambeeya saddexaad minus lagu dhifta minus lagu dhifta minus lagu dhifta minus halkan markii la joogo waxaa samaynaysaa labadan minuska waa isku dhacayaan square ka soo baxaysa laba jibaarna ka soo baxaysa oo balaasa labadan minuska waa isku dhacayaan laba jibaarna ka soo baxaysa ku dhifashadan lama inta ka jirta lama inta ka jirta labadan isku dhifo minus balaasa soo baxa waxaa ka imaan square garaysan labadan isku dhifo waxaa ka imaan square garaysan marka afartii laba isku dhacday square noqotay labana isku dhacday square noqotay labadan soo dhifo marka hal ka qaadanaynaa jibaaradan isku darsanaynaa jibaaradan kore ayaan isku darsanaynaa waxaa soo baxaysa marka ku jibaaran four aa soo baxaysa ku jibaaran four ayaa soo baxaysa wayla fahan soo ma yaa wayla fahan saara waxay ku tusinaysaa afartan waxay ku tusinaysaa afar in haysato anatan kow labo saddex afar aan haysano wayla fahan soo ma tusaalaha shanaad wuxuuna leeyahay u qor tirooyinkan soo socda taranta jibaarada isiro mutaxan taranta amba isku dhifashada jibaaro isiro mutaxan leh waxaa la isiiyey 72 waxaa la isiiyey 432 waxaa la isiiyey 1000 waxaa la isiiyey 16,000 weeye furfur dheh 72 soo qaad 72 maxay ka timid laba lagu dhifta 36 ay ka timid haye laba lagu dhifta soo qaado labadan soo qaado 36 kala jebinaa 36 maxay ka timid laba lagu dhiftay 18 18 kala jebinaa labadan labada soo qaadana labadan labaad waa tanaa 18 maxay ka timid laba lagu dhiftay 9 ka timid saddexdan labada soo qaadana 9 kan kala jebinaa darni kow labo saddex labaad 9 maxay ka timid saddex lagu dhiftay saddex hadda lambar la sii kala jebin kara ma jiriyaa maya hadda dhammaantood waxay u qoran yihiin taranta isku dhifasho taran maxaa waa isku dhifasho laba lagu dhifta laba lagu dhifta laba lagu dhifta saddex lagu dhifta saddex maano isku dhifasho waa taran jibaarada isro mutaxan waa kuwan aan kala jebi karin nambaradan labo isir mutaxan saddex waa isir mutaxan saddex waa isir mutaxan hadda waxaan u qoran taranta isro mutaxan bis jibaaro bis ay dhim jibaaro waxaan samaynaa labo iyo labo iyo labo hal labaan ka qaadanaa saddexna ku jibaara saddex iyo saddex hal labaan ka qaadanaa labana ku jibaara waa kana laba lagu jibaara saddex lagu dhiftay saddex lagu jibaara labo okay waaye nambarka 432 waxay ka timid laba lagu dhiftay 286 286 sii kala jebinaa waxay ka timid labadan hore soo qaado 286 waxay ka timid laba lagu dhiftay 108 108 sii kala jebinaa labadan labaad soo qaado labadan soo qaaday 108 waa laba lagu dhiftay 54 saddex labaadana saddex kanan kala jebinaa waa laba lagu dhiftay 27 saddexdii labaad iyo labadan kale oo lagu dhiftay 27 27 kala jebinaa waa saddex lagu dhiftay 9 saddex lagu dhiftay meeshan 9 laga rabaa meeshan 9 laga rabaa si fudud waxaan u dhigi karnaa labaatanta waxay ka timid saddex lagu dhiftay 9 maan dhihi lahayn 9 kan in sii kala jebino aan waxaan leenahay 9 kun wuxuu ku yimid saddex lagu dhiftay 9 kun wuxuu ku yimid saddex lagu dhiftay saddex kale muga saddex saddexaad meeshaan noo taalan dhihi karnaa saddex saddexaad ayaa meeshaan noo taalo jawaabta ugu dambeysa waxay naqeen muga labo hal labaad ka qaado meeqo ayaa haysanaa kow labo saddex afar labaad maano laba ku jibaara afar intana kow labo saddex saddexaad hal saddex ka qaado meeqo waa kow labo saddex soo ma meeshaan aan laba ka dhignana saddex ka dhig jibaarka saddex ka dhig sidaasaan ku saxaynaa saddex ku jibaaran saddexaan ka dhigaynaa waayahay nambarka ja u dambeeya waxaan leenahay 1,000 ayaan haysanaa soo ma uma dambeeya laakiin waxaa waye nambarka ja waxaan haysanaa 1,000
kun wuxuu ka yimid laba lagu dhiftay 500 laba lagu dhiftay 500 aa kun keenaysa 500 aan sii kala jebinaynaa laba lagu dhiftay 500 haysanaa soo ma 500 aan sii kala jebinaynaa waxay ka timid laba lagu dhiftay 250 500 waxay ka timid 250 250 aan sii kala jebinaynaa labadan soo qaado 250 waxay ka timid laba lagu dhiftay 125 saddex labaad haysanaa 125 aan sii kala jebinaynaa saddexdii labaad waa tan 125 waxay ka timid 5 lagu dhiftay 25 25 sii kala jebinaynaa labo saddex labaad iyo 5 soo qaado 25 waxay ka timid 5 lagu dhiftay 5 hadda waxay u qoran tahay marka tira mutaxan wax la sii kala jebi karo ma jiraan wixii isla hal ka qaado jibaar u sameey labo iyo labo hal xabaa ka qaadanaya saddexna ku jibaarina 5 iyo 5 iyo 5 hal xabaa ka qaadanayna saddexna ku jibaarina waa kana laba ku jibaaran saddex lagu dhiftay 5 ku jibaaran saddex waayahay nambarka x oo u dambeeya ambaxa 16 kun waxay ka timid 16 lagu dhiftay kun ayaa 16 ku keenaysa bis kana sii kala jebi kana sii kala jebi 16 wuxuu ka yimiday afar lagu dhiftay afar uu ka yimid kunna wuxuu ka yimid laba lagu dhiftay 500 afarkan laba iyo laba u kala jebi afartana laba iyo laba u kala jebi shantan boqolne laba lagu dhiftay 250 ka dhig bis afartan waa laba iyo labo afartan waa laba iyo labo labadan waa haysanaa 500 waxay ka timid 200 laba lagu dhiftay 250 250 kana sii kala jebinaynaa wuxuu ka yimid laba lagu dhiftay 125 125 sii kala jebinaynaa wuxuu ka yimid 5 lagu dhiftay 25 25 sii kala jebinaynaa wuxuu ka yimid 5 lagu dhiftay 5 waxaan haysanaa amigu 1 2 3 4 5 6 7 labaad iyo 1 2 3 5 saddexaad saddex shanaad muga biiskan labada hal xaba iga soo qaad maxaan ku jibaaraya muga 7 sababta 1 2 3 4 5 6 7 waay lagu dhiftay 5 hal xaba iga soo qaad 1 2 3 saddex ku jibaar 16 waxaa loo qori karaa muga laba ku jibaaran 7 lagu dhiftay 5 ku jibaaran saddex ayaa loo qori karaa dhammaad casharkeena halkaas ayuu noogu egyahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh